بسم الله السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الكسور دواد channel كسويال كميدي يقول بدن وين ما أنت وحي كليهين مدحوين فرماتشو لقد البدين ودحدي ومدحض مصر إثيوبيا أحمد مدوب دلع سي تليدي الشرقول الدولة فدرال كلا مع سنايد دولة الصومالي وكفكر حيرات والضمد لجهل كورونا فيروس أنكاسي ورك الدبدن وحكم إذا أفقف ولود لورك داعي جارسا داود ينتصن وحي ينقض بدن ورك نقدر كرون magacaygu waa Maslax Nasiib fadlan hadaan ugu cusubtahay channelkan subscribe inoo saar si aad noo wadaagto wararkeen iyo warbixinadeena ugu dambeysay adigoo mahadsan aadna ku soo dhawaada warkii faahfaahsan dowladda Itoobiya Masar ayaa waxa u dhaxeeya xiisad ka dhalatay biyo xireenka ay dowladda Itoobiya dhisatay waxaana dhawaan fashilmay wad hadal lagu dhameyn lahaa xiisad biyo xireenka ka dhalatay oo la filayay inuu ka dhaco dalka Mareykanka madaxweynaha dalka Masar Cabdulfataax Xasiisi ayaa qoraal u soo diray madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo oo dalbaday inuu dhexdhexaadiyo xukuumadda Addis Ababa iyo Qaahira maadaama labada dhinac xiriir dhow leeyahay kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda Masar ee arrimaha Afrika Abubakar Xifni oo warqadda madaxweyne Siisi soo gaarsiiyay Farmaajo ayaa sheegay in khilaafka labada u dhaxeeya uu gacan ka geysan karo xeeladda madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay kaaliyaha in webigaasi Niil ahmiyad weyn u leeyahay dalka Masar kuna tiirsan yahay webigaasi waxa uu sheegay haddii webigaasi dhibaato u keeno biyo mareenka webiga Niil ay saameyn doonto nolosha dadka Masar madaxweynaha Soomaaliya ayaa xiriir dowlad leh madaxda wadamada Itoobiya iyo Masar lamana ogo saameyn uu arrintan ku yeelan karo madaxweynaha Soomaaliya ayaa gacan ka geysan karo xalinta xiisadda labada dal u dhaxaysa madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa maanta dalacsiyay taliyaha ciidamada daraawista maamulkaasi ee ka howlgala degmada Afmudug ee gobolka Jubbada Hoose Axmed Madoobe ayaa maanta isniinta gaashaanle Maxamed Islaam u xiray darajada gaashaanle dhexe kadib markii Jubbaland ay shaacisay inuu diiday qorshe ay ku sheegtay shaqoon iyo afgambe la damacsanaa dowladda dhexe ee Soomaaliya madaxweynaha Jubbaland ayaa sidoo kale saraakiishii ciidamada maamulkaasi ula dardarmay inay daacad u noqdaan shaqada adag ay u hayaan shacabka dhawaan ayay ahayd markii muuqaal laga soo duubay taliyaha degmada Afmudug Maxamed Islaam oo kaga hadlayay sheeko uu ku tilmaamay inay dhaxmartay isaga iyo xubno ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan taliyaha hay'adda nabad sugidda ee Soomaaliya xiisadda dowladda federaalka iyo Jubbaland ayaa u muuqatay inay soo xoogaysanayso marba mar ka dambaysa taas oo ka soo bilaabatay doorashada muranka badneed dhalisay ee dib loogu doortay Axmed Madoobe isla markaasna dhacday sanadii la soo dhaafay 2019 hay'adaha dowladda rayidka ee Soomaaliya ayaa sheegay in ka baarandegaysa in gaan dhinaca socdaalka laga qaado dowladaha Itoobiya iyo Kenya iyo darisla Soomaaliya maadaama labada wadan laga helay cudurka corona maarayaha hay'adda dowladda rayidka Soomaaliya Axmed Macalin oo la hadlayay idaacadda VOA ayaa sheegay inay wadaan qorshe ay uga hortagaan cudurka coronavirus si loo badbaadiyo shacabka Soomaaliya waxa uu sheegay inay maanta yeelanayaan shir degdeg ah oo hadlayaan wax xiga maadaama shalay xayiraad saareen dadka imaanaya afar dal wax ku ugu daran oo coronavirus saameyn ku yeeshay dhanka kale waxa uu sheegay inay si weyn uga fikirayaan xayiraad saaraan dadka imaanaya dalalka Itoobiya Kenya oo cudurkan laga helay balse ay ku degdegi doonaan maadaama uu weli ku cusub yahay wararka ka imaanaya gobolka Gaarisa ee waqooyi bari Kenya ayaa sheegaya in afar qof ay ku dhinteen kadib markii qarax lala beegsaday baabuur ambulance oo xilligaas siday bukaano qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Ijaara Adam Maxamed Faarax oo qarax faafahaya hadaladiisa waxa kamid ahaa waxa uu qaraxani ka dhacay deegaanka Qoran Hindi oo ka tirsan county Gaarisa deegaanka Haluuqo waxayna ahayd xilli shaqada caadiga ah wasaaradda caafimaadka ee county Gaarisa ay ku guda jirtay gaari ambulance oo ay saarnaayeen tira ilaa haatan aan la sii cayimin ayaa ilaa afar qof ilaa saddex qof inay ku dhimatay haatan loo xaqiijiyay deegaankaasi wuxuuna ahaa qarax si toos ah loola beegtay gaarigaasi xisaab fara badan waa lagu furay dadka deegaankuna halkaasi haatan cabsi fara badan ay ka muujinayaan qaraxan ilaa haatan ilaa wareegyada degdega ah ee laanta Soomaaliya VOA helayso waxa ay sheegayaan in qarax uu ahaa mid lagu aasay meel dooxa ah oo gaarigaasi ambulance-ka ay bukaanka waday uu dusha ka maray marka uu dusha ka maray qaxayna xisaab ayaa la sheegay in markaasi lagu sii daayay taasoo keentay in dadkaas aan soo sheegnay ee 3 iyo 4 labaduba
ilaa haatan la xaqiijinayo deegaankaasna uu yahay deegaan inta badan warbaahintu iyo weliba ay ka go-on tahay xiriirka dhanka teleefanada ilaa haatan ay helaysa VOAda in darawalkii gaarigaas uu kamid yahay dadka halkaasi markuu horeysay ku dhintay. daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaa warkeena warkan warka xigeentaa ku midano waxaan kaga tegayaa sidaas iyo amaana Allah.